xasan ciraaqi oo ooda ay ka qaaday Somaliland markana ay fasaxday jananka lagu wareejiyay uu galbiyay halka iyo jigjiga wararkii ugu dambeeyay xogaha la helayo ayaynu ku hadli doonaa gudoomiyaha xusbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed oo dadafayay meeshana ka saaray isku day kasta oo markan la isku dayo in xusbiga kulmiye garab kale laga dilaaciyo kaasoo go'aano masiiriye gaara isagana barnaamijka ayaynu ku soo qaadan doonaa kusoo dhawow daawashada muuqaalka haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir hore haddii noola joogtayna waad mahadsan tahay aan guda galo waxaa maanta magaalada Hargeysa laga sii daayay jeel ku yaala General Xasan Ciraaqi oo ahaa taliyihii ciidanka gorgor guutada 18aad kaasoo laga soo qabtay xadka Somaliland iyo Itoobiya u dhaxeeya markii uu soo dhaafay xayndaabka gudahana uu soo galay Jamhuuriyadda Somaliland janankan xadhigiisa ayaa ahaa mid si weyn looga hadlay dadyo kala duwan ayaa ka bixiyay qaarkood ayaa dhaleeciyay xadhiga janankan halka kuwa kale soo dhaweeyeen ugu dambeyn dowladda Somaliland ayaa markan u aragtay sii deyntiisu inay tahay mid loo baahan yahay waxa la geliyay Paris haddaba yaa lagu wareejiyay maxay tahay sababta loo sii daayay Xasan Ciraaqi oo la filayay filashada laga qabay marka la eego qaabka loo soo qabtay in socdaalkiisu ahaa mid khatar oo damac badan oo dadani ku daahan yahay oo ay daba taagan yihiin qorshayaal muhmalkoodu yahay kuwo ka cadayda balse loo maleegayo dhagara qasoon oo loo dhigayo Jamhuuriyadda Somaliland marka laga eego galbeedka Somaliland ka warqabashadiisa ayaamo yar ka horna uu hadlay wasiirka gaashaandhigga ugu magacaaban dowladda ka dhisan Muqdisho ee Jamhuuriyadda Fiqi uu sheegay xilliga in la sameyn doono ciidamo laga abaabuli doono galbeedka Somaliland kuwaas oo hirgelin dowlad goboleed uu ku sheegay markan inay Soomaaliya u baahan tahay dhismaheeda qorshaha janankan ayaa ahaa mid durugsan baaristiisu balse waxay noqotay wax waliba inay ku soo gabagaboobaan muddo ku siman 10 cisho Somaliland markii ay maantooda ka qaaday sida ay xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay janankan ayaa lagu wareejiyay sarkaalka hogaamiye ciidamada deegaanka Soomaalida oo magaciisa la yiraahdo Gavade iyo mid ka mid ah wasiirada deegaanka oo ku sugnaa Hargeysa haddaba qorshaha loogu wareejiyay janankan iyo wasiirkani ma cadda maadaama aanu isagu ka tirsanayn ciidamada deegaanka Soomaalida ee loo yaqaan New Booliska ee uu ahaa janan ka tirsan dowladda Soomaaliya ciidankeeda mahab qabiil ayaa loogu wareejiyay oo raggan iyo ninkani waxay noqdeen kuwo isku oolo ka soo wada jeeda deegaan ama se hal isku reer oo la yiraahdo ogaadeen tan ayaa markan sababtay in ooda looga qaado maadaama ay isku reer yihiin mise waxaa jiray qorshe kale oo damaciisa uu ka durugsanaa inta inkastoo ay kala cadeyn haddana aragtida laga qaadan karo ayaa muujinaysa dadaalka ay bixinayeen mas'uuliyiinta ugu sarreeya dowlad deegaanka Soomaalida oo kow ka yahay horjoogaha halka ka arrimiyay Cagjar iyo wiilka uu adeerka u yahay ugu magacaaban horjoogaha ciidanka New Boolisku markan sidii dibadda loo soo dhigi lahaa ninkan oo xulnaa Somaliland kaasoo laga haystay Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isagu telefoonka ka dhigin jigjiga waxaanu dadaal badan ku bixinayay sidii loola soo bixi lahaa janankan isagoo xitaa sheegay haddii gorgortan nooc kasta oo yahay loo geli karo sidii dibadda loo soo dhigi lahaa Xasan Ciraaqi oo isagu arko mid muhiim ah oo ka mid ah garbaha uu ku taagan yahay inkasta oo laba jab u soo jiiday isaga iyo xukuumaddiisa Jamhuuriyadda haddana waxa uu sheegay in markan loo baahan yahay in laga soo furfuro wuxuu ugu yeeray gacanta cadowga hase ahaatee Somaliland ayaa sheegtay iyaduna geeskeeda baaritaan ay gelisay walow aanay sare uga hadal sida ay filayaan xogo lagu kalsoon yahay markan baadhis gees kasta oo la sameeyay in la xaqiijiyay ninkani inuu mudan yahay inuu dib u helo xorriyadiisa Somalilandna intaa ka badan aanay sii haysan karin maadaama ay gelisay baadhis waxay se sheegtay Somaliland in la qoray damaanado muuqda kuwaas oo la xisaabtan leh iyo la xisaabtamaysa madaxda deegaanka iyo kuwa ay maanta ku wareejisay mise kuwa telefoonada ka soo hadlaya ma ogin halka uu ku dambaynayo kiiskani balse xaqiiqda barnaamijku waa inuu maanta mar kale xorriyadiisii dib u hantay janankii dhowaan gacanta lagu soo dhigay Xasan Aadan Maxamed oo loo yaqaanay Xasan Ciraaqi maruu ka tirsanaa kooxaha midigta fog ee Soomaaliyana loogu yeeri jiray Xasan Garaad
qodobkeena kale waxaynu ku soo qaadan doonaa gudoomiyaha xusbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed oo meesha ka saaray isku day kasta oo markan damacleydu ay doonayso inay ku wareejiso mas'uuliyadda iyo xilka ugu sarreeya xusbiga kulmiye iyo hanashadiisa. waxa uu sheegay doonis kasta iyo isku day kasta oo la sameeyo inaan la aqbali karin, isagoo saacad u faray laamaha ammaanka inay tallaabo adag ka qaadaan cid kastoo samaysa isku day ay ku muujinayso inay kulmiye laba garab u kala dhigto. waxaa hadalkaa uga jawaabay isaguna geeskiisa gudoomiye ku-xigeenka afraad ee xusbiga Saajin oo uu gudoomiyuhu isaga lafdigiisu hadalkiisa ku soo qaatay kuna duray. waxa uu sheegay gudoomiye Kaahin cidda isku dayda inay qabato shir iyo isku imaatin xusbiga kulmiye ku magacaaban oo aan ahayn golaha sare ee xusbiga oo isagu horseed ka yahay inay yihiin dambiilayaan kuna ogaan doono gacanta amniga, isagoo faray wasiirka arrimaha gudaha iyo jananka ciidanka boolisku inay ka howlgalaan inay nimankaas mid iyo laba u soo qabtaan. xaaladda xisbiga kulmiye ayaa imika maraysa qiilanaa iyo meel adag oo markan u muuqata inay biyo dhiceedu noqon doono kulmiye inuu maro wadadii hore u maray xusbigii kaadirka ah ee markasoo arrimiyey Somaliland ee udub, inkastoo hogaankii udub isagu uu wareejiyey oo ay la hadheen kuwa uu sheegay hogaankii u sarreeyayba xilliga inaanay yeelan hankii uu isagu la doonayay. hase ahaatee kulmiye waxaa u muuqdaa mid qaadaya dariiqii oo hadda xaalkiisu sidaan hore u soo sheegnay waa qiilanaa meel uu u kala baxayna ilaa hadda ma jirto. waa kan gudoomiyaha xusbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed oo haddaba arrimaha ka hadlaya. dadweynahana u sheegaya, xusbiga kulmiyana u sheegaya, hay-adaha nabadgelyadana u sheegaya, guddi kasta oo qabanqaabo oo isagu sameeyaa waa kheyr sharci. waxaan u sheegayaa hay-adaha nabadgelyada iyo wasiirka arrimaha gudaha. bismi illaahi raxmaan raxiim. sidii markii hore shirka aan ku furay shirarkii shalayta ka dhacay hotelka xamdi ee uu qabanqaabiyey ee gudoominayey gudoomiye ku-xigeenka afraad ee xusbiga kulmiye, waxa ay ku sugan yihiin ama ujeedadeedu ay tahay wax kastaba ha ahaatee xusbiga kulmiye shirarkiisu waxaa qeexaya xeerka xusbiga. waa shirweyne, shir golo dhexe iyo shir guddi fulineed. midba wuxuu leeyahay cid hogaamisa iyo cid gudoomiye ka ah. gudoomiye ku-xigeenka afraad shir wuxuu hogaamin karaa markaan anigoo gudoomiyaha ahay maqanahay, gudoomiye ku-xigeenka koobaadna maqan yahay, gudoomiye ku-xigeenka labaadna maqan yahay, gudoomiye ku-xigeenka saddexaadna maqan yahay, ayaa gudoomiye ku-xigeenka afraad shir hogaamin karaa, shirna gudoomin karaa. waxaan u sheegayaa hay-adaha nabadgelyada iyo wasiirka arrimaha gudaha in shirarkaasi aan ahayn shirar sharxa, shirar sharciyana aanay ahayn, shirarka xusbiga kulmiye uu ka mas-uul yahayna inaanay ahayn. oo ay sababtu tahay shir kasta oo xusbiga kulmiye uu galayo marka ugu horeeya waxaa laga eegayaa mas-uuliyadda yaa leh iyo maxaa lagaga hadlayaa. shirarkaasi mas-uuliyaadka xusbiga kulmiye uu ka baxsan yahay waa kow. shirkaas guddiga fulinta waxaa kaga jiray xubno yar. shirkaa xubnaha kale ku jira xusbiga meel ay kaga jiraanba annaku garan mayno. sidaa laashariyeed xaq uma laha gudoomiye ku-xigeenka afraad inuu shir noocaasa qabto. shir aanu xusbiga ogeyn inuu qabtana waa xaq uma laha. sidaa darteed waxaan ku wargelinayaa wasaaradda daakhiliga, wasiirka daakhiliga iyo taliyayaasha ciidamada arrimaha nabadgelyada u xil saaran shirarkaas cidda wadaa aanay xaqa u lahayn, nabadgelyadiisana aanaan garanaynin cidda wada, inaanu xusbiga kulmiye mas-uul ka ahayn ee ay tahay mas-uuliyadda iyagu leeyihiin. shirkaa arrimaha lagaga hadlaya waxaa ka mid ah in gudoomiye ku-xigeenka afraad uu magacaabo guddida qabanqaabada shirweynaha xusbiga. shirweynaha xusbiga
muddadiisii way cayiman tahay, xeerka loo maray way cayiman tahay, cidda jeedisay waa anigoo guddoomiye ah oo ay igala tala galeen dhammaan hoggaanka dalku. waxaan leeyahay hoggaanka xusbiga hoggaankiisu waa 6 xubnood, 4 xubnood, 5 xubnood waanu ku joognaa, 3 guddoomiye ku-xigeen iyo anigoo guddoomiye ah 4 iyo xogayaha guud. mudane saashin isagaa keligii ka maqan. waanaad garan karaysaa in xusbiga hoggaankiisi 90% ay goob wada joogaan. marka waxaan dadweynahana u sheegaya, xusbiga kulmiyana u sheegaya, hay-adaha nabadgelyadana u sheegaya, guddi kasta oo qabanqaabo oo isagu sameeyaa waa kheyr sharci. wax kastoo kheyr sharciyana waa wax dastuurka iyo qarannimada iyo nabadgelyada maxaan ku dhahdaa wax yeelaya. xusbiga kulmiye waxba yeeli maayaan. waxa ku filan maxaan ku dhahdaa maaha ururka maxaan ku dhahdaa ururada iyo xusbiyada commissionkaasna waanu wargelinaynaa. arrimaha sharci darrada waxaan jecelahay hay-adaha nabadgelyada ee ku shaqo leh inay xilkooda ka gutaan. waad mahadsantihin.